maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa qaraxyada ugu dambeeyey ee soo noqnoqday ee runtii isku xigxigay ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mar walba ka dhacaya kaasoo dad badan oo birmageyda mar walba lagu xasuuqo runtii arrinta iyada ayaa waxay noqotay wax iska caadi bay noqotay yani sidii maalin walba loo soo tooso ee loo soo kaco ayay noqotay dhiigga iyo maxasta iyo rayidka shacabka soomaaliyeed maalin walba dhiiggooda wuxuu qubanayaa sidii maaragtay biyihii tuubadii buu qubanayaa meel walba hoteeladii qof walba oo ganacsado oo soomaaliyeed oo hotel magaalada muqdisho ka dhisay isdhaha hoteelkiisii isagoon muddoba joogin ayaa la qarxiyaa oo lagu celiyaa meesha uu ka bilaabay arrintan iyada ayaa waxaan iska weydiinaynaa maxay ku dhacday mar walba ma aragno dad maxkamad loo soo saarayo dembiyadaas dadkan wax qarxinaya magacyadoodii oo saddexan familadii ka soo jeedeen qaraabadoodii saaxiibadoodii gobolkii ka soo jeedeen waxaasoo dhan maqlayno su-aasha marka isweydiinta leh ee qof walba maskaxdiisa kusoo dhacaysa waxay tahay qaraxyadan yaa ka mas-uula maxaase looga hortagi waayo waa in labadaas su-aaloo jawaab lagu helaa qaraxyadan waxaa ka mas-uula niman argagixisaa jawaasiisa oo qaab maafiya u shaqaynaya nimankaasoo loogu talagalay in soomaaliya lagu qabsado soomaaliya iyaga dartooda intaasoo waddan ku yimaadeen si loo dhaho nimankaasaan la dagaalamayna laakiin waddamo meelo badan oo muhiima waa laga qaaday meelihii kale waa loo daayay kas ujeedadan iyadoo tahay in mar walba la dhaho al-shabaab baa jooga ma bixi karno pretext weeyaan nimanka iyaga marka dad qaarkoodii madaxdoodii saxda ahayd ee marka hore diin iyo jihaad u weystay waa la dilay waxaa isugu soo haray oo hadda hogaamiya dad jawaasiisa la shaqeeya sirdoon waddamo ajaaniba kuwaasoo fuliya marba meeshii la rabo soomaaliya inaynan ka kicin markii la arko soomaaliya dhaqaalaheedii sare u kacaya shacabkii soomaaliyeed oo hoteelo dhisanaya shacabkii soomaaliyeed oo faraxsan markii la arko yaa loo diraya oo la qarxiya ujeeddadu waxay tahay dadka soomaaliyeed ee soo noqonaya maskaxda soomaaliyeed ee dalkoodii kusoo noqonaysa si aynu usoo noqonin oo mar walba inta joogtana laga dilo qof walba oo aqoon-yahan iyo qof walba oo waxgaraad iyo qof walba oo culimo ah qof walba oo caqli lahaana uu isaga cararo ama shahaado haystay oo waddamadaas kaleeta irsaaqadiisu u doonto taasoo waddankii soomaaliyeed ee qaniga ka dhigaya meel baylaha carruurtii soomaaliyeed iyo mustaqbalkii soomaaliya uu noqonayo meel ay isugu soo horaan dad wax magarataa caloosho shaqaystayaal iyo jawaasiisa iyo waddamo doonayo khayraadkaa soomaaliyeed iyo dhulkaa soomaaliyeed kuwaasoon qarsaninba qaarkood marar badan bay dhaheen soomaaliya waxaa lagu darayaa hal waddan baa laga dhigayaa badda soomaaliya qaarkood ciidamay usoo tababarteen ciidamadii iyo maraakiibtii iyo wax walba usoo samaysteen qaarkood maaragtay heshiisye la soo galeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oy leeyihiin hal waddan baan isla noqonayna uma baanid inaad samaysato constitution iyo qaab dowlad midna hal dowlad baan noqonaynaa qaab noocaas ayaa loogu dhigayaa laakiin waxaa mas-uuliyadda koowaad aan dusha aanu ka saaraya shakhsiyan dowladda federaalka soomaaliya qaraxyada noocaasa dowladda soomaaliyeed xilalkii muhiimka ahaa ee shacabka soomaaliyeed lagu badbaadin lahaa ee lagu difaaci lahaa ee lagu dabageli lahaa dadka mujrimiinta ee dadka xasuuqaya waxaa loo dhiibay dadaan ehel u ahayn aqoonteedii lahayn khibraddeedii lahayn maalinka ay wax dhacaanna aan waxba sheegi karin hadda maanta qaraxyaa dhacay qaraxyadaa dhacay ma aragteen nin mas-uul ah oo taliya sare oo booliiska gobolka banaadir oo sheegaya qaraxyadan dadkii sameeyey iyo sabab ujeeddadooda meeshay ka soo duuleen magacyadoodii qaraabadoodii maya ma laha waa shib weyn maxamed cabdullaahi farmaajo meediyuu ka hadlay facebookiisu ku soo qoray waxaan u tacsiyeynayaa shacabka muqdisho hebel generaal galaal baan u tacsiyeynayaa keliya laakiin ummadda soomaaliyeed ma tacsi bay ka rabtaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ragga la midka maxamed cabdullaahi farmaajo waqtiis waa dhammaaday laakiin ragga la midka waxaa laga rabay inay ammaanka soomaaliyeed sugaan say ku dhacaysaa baabuur dhan oo walxaqarha ka buuxaan oo ciidan hubaysan saaran yahay inuu intaasoo checkpoint dadkii soomaaliyeed jidadka muqdisho way mari laayiin checkpointyada dartood say ku dhacday marka baabuur intaasoo hubaysan oo intaasoo ninoo hubaysan wataan inay yimaadaan hoteelada caanka ee loo yahay security iyo ciidanka joogaan yani meesha waxay ka dhigan tahay in sirdoonka soomaaliyeed iyo booliiska soomaaliyeed wada shaqayn buuxda ay la leeyihiin qaarkood argixisada qaarkood dad aan ahel u ahayn xilalka muhiimka ee dowladda soomaaliyeed inay hayaan dad kale markuu waddanku dowlad markay jirto
hoggaanka nabadgelyadu waxaa ka mas-uula nabadgelyadu waxaa ka mas-uula ciidanka booliiska iyo sirdoonka waa labada hay-adood iyo wasiirka arrimaha gudaha saddexdoodaasaa waxay tahay they must be held accountable markuu dembi dhaco adduunka waxaa lagu yaqaanaa markuu laba jeer qarax isku xiga hadday soo baxaan wasiirka arrimaha gudaha waa la casilaa taliyaha sirdoonka waa la casilaa ka booliiskana waa la casilaa ama haddii kale hal qarax markuu dhaco digniin culus baa la siiyaa oo ah in qaraxyadan meesha laga soo abaabulaya ciddii soo dirtay ay keenaan dadkan wax qarxiya ehelkoodii qaraabadood intaasoo qaraxu soomaaliya ka dhacay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 4 sano u joogay lama hayo dad si officiala intermedia la keenay qaraabadoodii la raadiyey saaxiibadood la raadiyey iskooladay dhigeen la raadiyey goortay shabaab ku heleen la soo helay oo lagula xisaabtamay oo la raadiyey saaxiib ragga iyagee wax qarxiyey saaxiibadood lama raadiyo qarxi uu dhacay waanu tacsiyeynay ciidiba kama daba dhaqaaqayso cid maxkamad loo keenaya mala cid lagu eedaynaya mala arrintaasna runtii arrin saxa ma aha arrin la qaateena ma aha runtii waxaa weeye dembiga marka anigu waxaan dusha ka saarayaa dowladda sababtoo dowladda iyaday tahay inay muwaadiniinteeda ammaankooda sugto nabadgelyadooda sugto ay xaqiijiso in muwaadin walba hantidiisa iyo naftiisa ay nabadgelyo yeesho haddii dembi halkan ka dhaco ama halkaa ka dhacana iyadaa laga rabaa inay daba gasho oy maaragtay keento dadkii dembiga ka dambeeyey soo abaabulay oo dhan laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladdiisa iyo prime ministerka waxaas shaqadood maa wuu dhacay waanu tacsiyenaynaa kadibna waa ka socda wey noloshii dadka xataa magdhow lama siinayo dadkaas waalidiintaas iyo ehelka qaraabadoodii la xasuuqay wax magdhowa wax ka warqaba wax maaragtay dadkan see loo caawiyaa xitaa ma jirto aad iyo aad ba marka waxaan u aaminsanahay inay khaladka oo iska leedahay dowladda soomaaliyeed waxaa sidee looga hortegi karaa su-aasha marka in la isweydiiyo mudan ba waxay tahay qaabkee loogu hortegi karaa qaraxyadan sababtoo maaha inaan dhibka keliya ah iyo dhaliisha sheegno waa inaan isweydiino sida looga hortegi kara qaraxyada waxaa looga hortegi karaa qaraxyadan dhacaya ee soo noqnoqonaya soomaaliya maalin walba waxaa looga hortegi karaa in guddoomiye degmo kasta taliyaha booliiska ee degmo kasta iyo taliyaha sirdoonka ee degmo kasta loo sheego qarax hadduu ka dhaco degaankooda inay iyagu mas-uul yihiin oo maalinkaa qarax haddii hal mar iyagoo jooga qarax dhaco marka labaad ee qaraxaas dhaco haddii dadkii qaraxaas sameeyey aan gacanta kusoo dhigin in iyagoo dhan la qabto in xilka laga qaado dadka lagu bedelo loona sheego dadkan inay waajib ku tahay inay ammaanka sugaan baabuur walba iyo qof walba oo degmadooda soo gelaya seexanaya hoteeladooda la yaqaano magaciisa magaalada muqdisho waa in la diiwaan geliyo oo degmo walba dadka ku nool la ogaado oo hoteel walba dadka seexanaya la yaqaano oo dadka soo gelaya meel walba la diiwaan geliyo weeyaan kala hadda adduunka maa waqtigii reer baadiyaha wax walba intay dhacaan laga socon jiray maanta waxaa loo baahan yahay in jid walba laami walba hotel walba caana kaamarooyin lagu rakibo oo qof walba raadkiisii la heli karo markuu qarax dhaco waddooyinkay soo mareen checkpointyada soo mareen checkpointyada soomaaliya oo dhan ee magaalada muqdisho soo gala waxaa loo baahan in lagu rakibo kaamarooyin oo askartu siday ugula dhaqmayso sadda dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku nool mar walba waxay ka cawdaan askar yani dadka bahdisha si xun ula dhaqanta laakiin askartaa meeshay dad ku baarayso haddii kaamarooyin lagu rakibo yani dadkaa lama dhibayo askartaas adaabta daran waa la ogaanayaa kalaaluushka qaadan waa la ogaanayaa kuu sii daayay dembiila waa la ogaanaya hadduu qarax dhaco jidkay soo maraan si fudud baa lagu helayaa si fudud baa lagu helayaa takale nin walba markuu ogyahay kaamara inaa haysto wuu dadaalayaa hoteelada laftigooda securitygooda see baabuur isaga soo maraya hoteelada soomaaliya waxaan garan waayay dadkan yani weligood ma ilbaxaan miya hotel keliya dhis yaqaanaan baabuurta waxaa loo baahan yahay hoteeladu inay leeyihiin derbiyadii adkaa ee shubka ahaa een baabuurku dhaafi karin ee welibana hadda bahalo casri ah jira oo baabuurku markuu soo galayo hoteelkana la dejin karo oo dhul ku dhegaya markii oo baabuurku uu mujrina soo baxaya oo botanaa jira marka waa la awoodaa in kale hoteeladan hadda derbi baa lagu garaacaa leeyahay yani hadda baabuura waxaa leeyahay derbi baa lagu dhuftay derbiga markii lagu dhuftayna waxaa la sameeyey 2 nin baa askaraa gashay oo qoryo la gasho hotel gudihiisa dad saa u kulaysay laakiin hoteelka dhan waa in lagu wareeriya hariyihiisa shubkaa yar ee sida maaragtay dayr camal ah shubkaa yarka haddii lagu wareejiyo baabuurtu ma soo gaarayso haddaba reer yuruba saas sameeyaan markii argixisada meel walba timid ay isqarxintooda badatay waxaa la sameeyey shubaa la sameeyey meel walba dhismo walbo muhiima oo isleeyahay waa la qarxin karaa sida hoteelada meelaha lagu kulmo meelaha shirarka lagu qabsado meelaha tiyaatarada shirhimooyinka
meelahaas oo dhan waxaa loo baahan yahay in baabuur qarax iyo miino wato una soo geli karin hadduu banaanka agiisa ku qarxo hal qof dhaawo laakiin inuuna dadka gudaheeda maasiska uuna soo gelin ayaa loo baahan yahay runtii waana nasiib darro arrinta Soomaaliya marka waxyaabaha loogu haddii la samayn lahaa dadka mas'uuliyiinta ee nabadgelyada ee degmada ka gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha xilalka haddii waayi lahayn iyo kasirdoonka oo mar dhacdo oo nin walba ogyahay haddii qarax dhaco in isagana xilka weynayo qof walba xil wuxuu iska saari lahaa shaqadiisa inuu qabsado qof walba wuxuu dabageli lahaa magaalada kale magaalooyinka loosh adduunku maaha adduunku waqti sida xoolihii la isaga socon jiray adduunku magaalada London waxaa ku nool 20 milyan oo qof baa ku nool oo maalin walba sii galay sii baxaysa qof walbana waa loo yahay meeshuu taagan yahay loo yahay si wuxuu qabanaya loo yahay magaalada muqdisho dad ku nool waa dad yar degmo walba haddii loo qaybiyo dadkeeda oo la dhaho hoggaanka sirdoonka iyo hoggaanka booliiska waa inaad qof walba degmadiina iyo xaafadiina soo gala taqaanaa oo diiwaan gelisaan qarax markuu dhaco baabuur walba oo waddanka la diiwaan geliyo laakiin waxaas oo dhan ma jiraan sida muuqata waddanka Soomaaliyeed wax walba way iska socdaan baabuurta si fiican looma kontroolayo dadka wata lama kontroolayo hadhowdii qarax markuu cid taqaana ma leh حتى قرحي في على لون باراي أرنت أيضا رنت أرن لقى حماضة ونتحسين الشعب الصومالي إلهنا وحقوق برينا إنه أبو قديو وجامي كان حي يمسؤولين كان حيسا وعدوًا لا صدر إنه يبقى إنه حسوقان كقبت إني لا أصدر رنتي